Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan Soomaaliyey. Magacaygu waa Xamse Maxamed. Waxaan soo jeedin doonaa maanta mowduuc ka mid ah mowduucyo ay muhiim tahay inaynu dul istaagno oo ku qotoma dhaqankeena Soomaaliyeed oo qarka gebiga u saaran inuu ka dhaco boqornimadii ugu sharaxnaa ay ahaa inuu koobka ugu haysto dhaqanka Islaamka ee ugu wanaagsan. Haddaba maxay tahay masiibada aynu ka hadlayno ee markaasi aan mowduucan ku soo qaadan doono? Waa dhaqankeena Soomaaliyeed oo khatar ugu jira in lagu bahdilo aaladda TikTok oo barihii ugu dambeeyay muddo 5 sano ah ku soo biirtay aaladaha internetka, taas oo masiibo gaara noqotay. Haddaba wixii fikira waxaad nagula wadaagi doontaa dhinaca commentiga adigoo faallo ka dhiiban kara wixii fikira. Aan ku bilownay barihii ugu dambeeyay markii ay soo ifbaxday aaladda TikTok waxay ahayd aalad u eg in muuqaalada gaagaaban lagu wadaago taasoo dunida aad ugu baahday. Kadib markii ay soo gaadhay dadka Soomaalida inta badan waxay noqdeen kuwo isku dhex yaacay, inta badanna waxay isticmaala gabdhaha iyadoo noqotay meel aad moodid inay shadaadiintu ku kulmaan. Aaladdan ayaa ah masiibo aad u dhibaato badan. Haddaba dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah iyo dadka Islaamka ah markaasi maadaama bulshada Soomaaliyeed ay 100% Muslim tahay, masiibadan aaladda TikTok ayaa keentay in ay dad badan maryaha dhigtaan. Waxaynu ka hadlaynaa qaybta dhinaca hablaha. Haddaba maxaa laynooga baahan yahay? Waxaynu u baahannahay waynu iman doonaa, laakiin waa inaynu horta ku bilowno waxa dhibaatada jirta ee aan waagaceeda soo bandhigi doono. Waxaad moodaa in dhooqo la galay kadib markii TikToktu soo ifbaxday, waxaana jira dadyow markaasi hablo yaryar oo xataa da'dooda ayna gaadhin 15 oo soo bandhigaya waxyaabo aan hore looga baran dhaqanka Soomaalida ee aadka u buuran ee aadka u wanaagsan. Soo bandhigidaas ayaa noqotay mid qaabab kala duwan loo soo bandhigo iyadoo heerkan casrigaana lagu tartamayo waxaan macquul ahayn oo ah in ay heblaayo intaasoo qof daawadeen iyadoo kamarada isku soo jeedisay oo aan aqoon muuqaalka iska duubayso dhibaatada uu iyada ku keeni doono iyo waxa uu bulsho ahaan iyo diin ahaanba uu horseedi doono. Haddaba waxaynu fahmi karnaa markaynu aragno TikTok waxyaabo badan oo inaga daahsoonaa aaladaha kale ee internetku lama sinna tan TikTokta. TikTokta muuqaaladaas gaagaaban ee lagu soo gudbiyo waa mid laga soo saaro guryaheena dhexdeeda, inta badanna dalka gudihiisa. Bulshada dalka gudihiisa joogta ee Soomaaliyeed ayaa inta ugu badan ay waxyaabahan ka yimaadaan iyadoo ay haba jiraan kuwo kale oo dalka dibadiisa jira. Laakiin waxyaabaha ayaa waxa ka mid ah in ay hablahani maryaha dhigtaan soona bandhigaan jidhkooda, kuwaas oo markaasi si ay views ama markaasi caan ugu noqdaan. Waxaynu tusaale u soo qaadan doonaa gabadha Nimco Habi oo ah fanaanad Soomaaliyeed. Kumay soo caan bixin iyadoo soo bandhigaysa jidhkeeda, laakiin soo ma ogid inay ku soo caan baxday wax Ilaahay u qoray oo calaf ah. Haddaba inagoo taa ka tusaale qaadan karna waxaynu eegaynaa ma waxaa loo baahan yahay kaliya inaad jidhkaaga soo bandhigtid oo bulshada sidaa ku baratid inaad tahay qof jira? Taasi waa maya. Waa wax adiga dhibaato kugu haysaa oo dhibaato ku haysa dhaqankaaga iyo diinta. Diinta iyo dhaqanku waa carab iyo labadiisa daan. Iyadoo ay sidaa tahay waxaynu ugala jeednaa in markaasi ay isku xidhan yihiin oo haddii la fulinayo awaamiirta diinta loo baahan yahay dhaqanka in Islaamka lagu hago. Iyadoo ay sidaa tahay, haddii aan soo qaadano tusaale kale, dunida Islaamka marka la eego dhaqanka Soomaalidu waa mid aad u qurux badan dhabhaantii. Markaad siyaabo kala duwan u eegtid kii hore iyo kan haatan farqi weyn ayaana u dhexeeya. Bulshada Soomaalidu waxay u aqoonsan tahay waxaan la aqbali karin inay habluhu maryaha dhigtaan oo sidaana ay suuqyada ku maraan, iyagoo haatan waqti xaadirkan xataa ay jiraan hablo fara badan oo iyagu aan soo bandhigin cawradooda iyo jidhkooda maadaama ay gebi ahaanba yihiin cawro. Haddaba maxaa laynooga baahan yahay? Waxaa laynooga baahan yahay inaanu inagu dib isku noqono oo halkaynu kasoo toosino ogaano waxa ka jira. Haddii aad isticmaashid aaladda TikTokta waxaa kuu caddaan doonaa waxaynu ka hadlayno oo aad si buuxda u fahmi doontid dhaqan darrada halkaasi ka jirta ee masiibada noqotay. Bulshada adduunka ee ku aqoonsan dhaqankaaga wanaagsan iyo diintaada haddii aad hordhigtid wax aan hore lagaaga baran
waxay noqon doontaa qofka cusub ee ku bartaa inaad bartay wax ka duwan wixii uu shalay kaa aaminsanaa. haddaba haddii aanu tusaale u soo laabanno, dadka kiristanka ah ee ku nool dunida carabta ama inta badan dhulalka carabeed ee islaamka, markay tagaan dhulalka reer galbeedka iyagoo kiristana, hadda ogow, ma jiraan ama kuma sii daayaan dhalinyartooda iyo carruurtooda, wayna iska ilaaliyaan, waxayna saaxiib dhow ka dhigtaan dadka kale ee islaamka, maba ahaba kiristan, maba ahaba muslim. haddaba waxay ku tusinaysaa dhaqanka islaamka ee wanaagsan ee markaasi Soomaalidu ay ugu horreyso. haddaba maxaynu ku badbaadin karnaa? aan tusaale u soo qaadano dalka Masar. dadka Masaarida ah markay arkaan arrimahan oo kale, dhalinyarada youtuberada ee baraha internetka wax ku soo gudbisa ayaa markaasi isku wajaafisa muuqaaladaasi iyagoo dacwad ka keena in lasoo qabto, kuwaas oo ay suurtagal tahay in xabsiyada loo taxaabo oo halkaa jeelka ay liinta ku cabaan. haddaba dalal kale oo islaamana arrinkaasi waa uu ka jiraa, oo in hablaha la xidho ama qofkii dhaqan darro sameynaya la xabsiga markaasi la dhigo. innagu waxaan u sababeyn karnaa oo arrinka ugu badan aan u sababeyn karnaa nidaamka dowladnimada ee burburka ah. waxayna taasi sababaysaa dadyow aan xataa dalka gudihiisa joogin in ay soo gudbiyaan waxyaabo foolxumo badan, kuwaas oo ay bulshadu aad u karahsanayso. haddaba innaga waxaa laynooga baahan yahay inaan sameyno wacyi ku filan dadkeenna, guryaheenna, iyo inaan markaasi ku dhaqno bulshadeenna. gaar ahaana inta badan bulsho waliba waxay leedahay warbaahin ay iska dhex aragto, taas oo ah muraayadda ugu muhiimsan gebi ahaan. haddaba ma jirto warbaahin si rasmiya bulshada Soomaaliyeed ay iskaga dhex aragto oo markaasi ay arki karaan dhibaatada bulshada ku soo fool leh iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi loo baahan yahay in lagaga gaashaanto. Soomaalidu waxay ku maamahdaa dameeridhaan raacday. ma waxaynu noqonay dameeridhaan raacday oo waxaynu garab cararnay waxaas internetka ka jira, tuuladaas maanta la wada joogo ee cid walba ay markaasi ku jirto? qaar ayuu dhaqankoodiga ka lumay oo la dheelmaday dhaqamo shisheeye iyo iyagoo bulshooyinkoodu u horseedaya fawdo. haddaba ka waran haddii aynu kuwaasi ka mid noqono? waaba hubaal oo waa arrin muuqda. maxaa yeelay arrinka ugu fajaca badan ayaa ah tiktokta. xaaladda tiktoktuna waa mid faraha kasii baxaysa oo luminaysa dhaqanka iyo markaasi asturnaanta bulshada. dunida oo dhan waxaa loogu doonista badan yahay waa asturnaanta, iyadoo inta badanna markaasi kombaniyada internetka lagu eedeeyo oo markaasi lagu dhaleeceeyo inay asturnaanta bulshada awoodi waayeen, kaasi oo la kulma fadeexad foolxumo badan sida Facebook iyo sidoo kale WhatsAppka oo kale. balse ka waran haddii aad adiguba markaasi aad hormuud u noqotid masuubada iyo fawdada markaasi asturnaantaadii markaasi buuxday? gabadh kasta oo isku soo bandhigta internetkaasi iyadoo markaasi caannimo raadinaysa, ugu dambeyn waxay ku dhacdaa hataq aan la ogeyn cidda ka soo saari doonta. waxaynu ka hadlaynaa hablaha waxaa waana ugu filan in ay asturaan oo markaasi ay si fiican u fahmaan dhaqankooda suuban iyo diintooda islaamka ee suuban, in markaasi tubta ay raacaan, taasoo maanta meel walba ay ka heli karaan, sida axaadiista ku saabsan asturnaanta iyo dhaqanka, iyo sidoo kale in la hab raaco oo markaasi lagu dhaqmo islaamnimada. tiktok 5 sano ka hor ayay soo baxday, waxayna muddooyinkii sanadadii ugu dambeeyey ay aad ugu faaftay dunida oo dhan. xataa dalalka qaar ayaa kasoo horjeestay, xataa waddanka Mareykanka ayaa mar laga mamnuucay. haddaba iyadoo ay sidaa tahay, aaladan Chinesku sameeyeen ayaa noqotay mid dhibaato weyn abuurtay oo bulshadu ay dhinaca khaldan isku isticmaashay. internetka oo dhan waxa uu leeyahay laba seef oo mid ah faa'iido iyo mid khasaare ah. taasna waa masiibada ugu ballaadhan ee bulshada looga baahan yahay inay helaan wacyi ku filan iyo waanooyin muhiim ah. bulshadeenna aynu ka waanino dhaqandarrada iyo waxyaabaha sababaya masiibada aan laga soo kaban karin ee la halmaala dhaqanka oo luma, iyadoo ugu dambeynna maadaama lafdhabar ay diintu u tahay bulshada, dhaqankuna uu yahay markaasi lafdhabar, waxaa laynooga baahan yahay in aan markaasi ku dhaqanno dhaqankeenna suuban, inagoo bulshada dunidana ugu faani karna asturnaanta dhaqankeenna ee aadka u qiimaha badan ee aan lagu doorsan karin waxba. haddaba xataa dunida kale islaamka ayaa markaasi daawato oo aad u qadarisa dhaqanka Soomaalida, iyagoo markaasi xasuusta waqtiyadii asxaabada.
haddaba gabadhay caanimaha ka raadin TikTok iyo gebi ahaan internet adigoo soo bandhigaya jidhkaaga iyo markaasi waxyaabaha adiga khaaska ku ah, waxayna intaasi oo dhan ka turjumi doonaan haddii aad soo bandhigtid adigoo caannimadaadu noqoto mid foolxumo badan oo dhibaato weynna la kulmi kara mar walba. Markaasi waxaynu cafis weydiisanaynaa Allah subxaanahu wa tacaala, waxaynu laynooga baahan yahay in markaasi aan wacyi ku baahino baraha internetka iyo dadka bulshadeenu. Markaa maadaama bulshada Soomaalida ay dhalinyarnimo u badan yihiin oo dhalinyaradu ay aad ugu badan tahay, waa farxad aad u ballaaran oo la qadariyo. Sidaas awgeed waxaa laynooga baahan yahay ama aan isuga baahannahay inaan iswaanino, wixii dhibaatahan iska reebno, khayrka iyo markaasi dhaqankeena suubanna aynu ilaashano. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa mawduucan. Intaan mid lamid ah dib ugu kulmi doono, sidaa iyo nooli kulante.